حما هاي يعني واحد ودت كانوا عتانك يقبضين ويان وأنا توجا ولا لا لو عتانك يقداف بليس أنا ما يقاني سيدي لسكي جحر من سينجر كان لكن وعتان إن ير أنت يرتا مهمتك هالله هنجعلها هنا للسوي عن بليس عطي إجتها هاي يعني وحربة ومدن صومالية دينا وحير آفهنسيو وأنا بريا بليس دتك يسوي عتانك هاي قدافان Oh my god أروعتانك إقداف واني توقع قركينا إن هستاي أهلا وعليكم السلام سو دواده مركل إسكو سو نقضة وكحما قد كانوا ويقحين حي دad كانوا وعتاني إيوهايا مفانتين رالي هذا رالي هذا حواي اسك قلعين هاي الدنيا دستاسكا دون وري waa laga baxaa insha Allah waxaani waa aragteen iska hagaag doonta waani tuuga wicitaanka migadeesiino igaraal noqda waaqadka aad u yar culus yaanan hadda ku sii yani yaanan si waxay ismin waxaan rabaa dhammaan inaad ii ogeysiiyo ina anay horta safar ahay number 1 waxaan rabaa inay ii soo duceysaan inuu ilaahay ii fududeeyo isma qalbi jira mali maqlooya haa soo qora alaanaysiiya nasr shaqale waan ka qaade qaalid diyaare calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhawaad waxaan rabaa barnaamijkan inaad sii sheer gareysaan in yar يعني سيدة كلمة ركتدت ككلته إذن يعني إن رسي ودايجان أوكي خالد أوكي إن بحارب أرتينا ذي شيء إن شاء الله تعالى أنا جا سفراني أوجينا يسوق لي يعني سكة سوي يسوق لي هاي يسوق لي محمو بحارب أنا إذن شيء قدتك وحياة قلدنا استعمالها يوم horta wixii soo daaha aqeyrka ku jira ilaahay subhanahu wa ta'ala yiri anigana waxaan sugaayay qeyrkayga tamam anigana waxaan sugaayay qeyrkayga waxaan rabaa inaan idin sheego horta safar aan ahay walaalay Soomaaliyeed tihiin ii soo duceeyaan waxaan kaloo mahad celinayaa saaxiibadayda qaaliga ah oo mar walba garabkiisa oo i garab taagan oo i jecel oo inay wax aan maanta aan noqdo jecel horta aadan ugu mahad celinayaa meel walba dunida ka joogaan ugu horeyntii waxaan salaamayaa dhammaan seerjit ama askarta ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed nooc walba ay ahaadaan yani ciidan waa isku wada ciidan dadka qaaska ah oo sida badan ii caawiyo ayagana aad baan ugu mahad celinayaa saraakiisha xildhib waani bariya wicitaanka please wicitaanka iga dhaafa ma la ilaahiyo wax maqlaysiin miya waani bariya wax yar waxaan rabaa saraakiisha madaxda qaranka shacabka Soomaaliyeed qof walba oo garab isiisay oo walaala oo ehla oo Soomaalinima oo Islaanima dhamaantiin horta aad u mahadsantiin ilaahay waxaan idinka baryayaa in maaragtay inta ay qabateen in namid inuu ilaahay idinku bedelo waxaan rabaa horta safar aan ahay ii soo duceeyo waxaan rajaynayaa meesha u socdo markaan tago halaha dhiman inuu ilaahay ii dhameystiro oosan ilaahay marnaba igu waani bariya waan ku fahansana walaalo inaan ka qabto diyaar oo mihi iga dhaaf wicitaanka waxay noqonaysaa inaan iskaga tago meeshaani dad baa ii ogoleen inaan hadlo oo wicitaan igu waxay maansintarka dhamma dilad garaya way saasi tagaysaa yani uma leelo waa dhawaa waa sheego way ii jeedaan mikrofon wicitaanka maansintarka aan dilad garaya
gudub waxaan ilaahay horta ka baryaa meesha u socdo inuu ilaahay liibaanayna macay ku daro waxaan u mahad celinayaa xukuumadda federaalka nooc walba ay tahay xildhibaanadeeda garabka siiyay haatan u taagan inay garabka siiyaan wasiiradeeda oo mar waliba ayagana taagan inay wax ii qabtaan waxaan ugu mahad celinayaa sida quruxda badan ee igu soo bandhigeen inay maanta wax ii qabtaan ilaahay waxaan ka rajaynayaa insha Allah tacaala in ayagan ilaahay ku ceebeenin oo anigana ilaahay caafimaad igu daro yacni ay noqoto mid lagu faano waa wax lagu faano maanta faa'iido oo baxday oo caafimaad heshay oo ilaahay caafimaad ugu daray meesha tagtay wallaahi bilaahi talaahi adduunka waxa waaye wax walba waa la arkaa dowladeedu waa aaminsanahay waan jecelahay inta ay qabato khayr Allah siiyo caaw duca baa wadaa ducadeedu marmar iska kacdaa ilaahay waxaan ka baray mid saracado isqabsato oo liibaanto inuu ilaahay ka dhigo waa kusoo tufaac waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed in maaragtay safarkan u socdo ee dawladda qaadayso number 1 waxaan rajaynaa inay ku guuleystaan anigana waxaan rajaynaa inuu ilaahay caafimaad igu daro idinkana waxaan idin codsanaa inaad ducada igu soo qabtaan أنا مريض كره هذا يعني لكن إن شاء الله تعالى بإذن الله الكريم وهذه اسكدوا القات إن شاء الله تعالى وحقاقة اسكدوا القاته إن شاء الله تعالى قال ديري خالدو بيعوه وكنا السلام عليكم وعليكم السلام حالف قادوا وحي فايس أدبكم سلامين خالد ساتا في عملاش الحمد لله أخبارك إيه وربا باكو حمادك والد سوى دوعويا يعني أورتا waxaa samaysaa anoo banooni iska ciyaarayay oo banooni ka imaaday dhab isoo tiri dhib ma laha waxaa samaysaa baayo messengerka caadiga ah delete iska dhig horta haddii kan ka bax mahalaawayo aan reer baadiya ahay waraama adoo saan ah hadda adoo saan dhaxda taabo iPhone-ka messengerkaaga click dheh saan ma dhaha waa ka baxda bay markaa meesha taabtee way karaa madlad tismaya ilaahu aqdeynina maxaa sameynay codkayga in la maqlaayo u malaynaya horta qaalidaani baro marka koobaad qaalid waxaa waaye walaalkayga aan jeclahay wuxuu ka mid yahay dhalinyarada sometimes i dhiirigeliya wuxuu ka mid yahay dhalinyarada mar walbeeto yacni wacyigelinta xagga wacyigelinta igu soo wacyigeliyo yacni waa qofka keliya maanta wax walbeeto problem markaa dareemo dhaho saas maahane deji xaaladda way hagaagayaan wax walba way hagaagayaan yacni wuxuu ka mid yahay dadka tirsanaayo qaalid iska bartikooda hore qaalid maxaa leedahay yacni bixitaankayga kolay aniga kuma sheegay surprise kaaga dhigo maanta la isoo sheegay inaan baxaayo oo tagaayo no hay igu wada sheegin ma qaraya wada sheegin salaamu calaykum aad baa u salaamaya ummadda Soomaaliyeed inta online-ka hadda wada ah ama inta gadaalka arki doonto ama maqalka iyo muuqayga garanayso faa'iiso aad iyo aad ugu faraxsanahay inkastoo awal balaankeenii ama qorshaheeni iskugu keen dambeeyey ee waddadaas ahayn laakiin isku wada ahayd laakiin dhinac kale hadda aadni alxamdulilah rabbil caalamiin waa arrin farxad leh oo aad iyo aad wallah ugu faraxsanahay baayo waxaan rabaa si gooni ah in aan ugu sheego ummadda Soomaaliyeed weliga allaha qofka walaalka ah waxaad ogaataa faa'iisa
anigan maanta hadda qaalid ah banooni iyo mataqaanaa meelo iyo socdaa ka imaaday faa'iise shalaytooda ayadoo dadkeedii iyo shacabkeedii ayadoo wax u qabanayso ayaa ilaahi subxaana watacaala dhibkan u keenay waxaa ogaataa marka haddaad qurbo joogtid iyo haddaad waddankaaga joogtid ba allah subxaana watacaala ayadaba maanta amuurtan ilaahay dambi dhaafa uga dhigay u keenay ayay adigana inuu kuu keeni karayo faa'iise maysan ahayn ayadoo magafo marayso ama waddo marayso ama ayadoo mataqaanaa balaayo kale ku jirto dhibkan uma imaanin marka waxaa ogaataa dad badan waxaa jira iska baryahan dambe aad social network ugu sii wada dhahayeen dowladda ayaad caysaa dowladda ma taageertid faa'iise shalaytoole anigana iglama tashan adigoo daawanaysana kaalama tashanin ayadaa dowladda gashay ayadaa dhiiggeeda iyo mataqaanaa ayadoo weliba hooye ah dheecaankeeda u dulbiday in mataqaanaa waddankaas nabadgelyadiisa iyo sidii xorriyad lagu heli lahaa inay u gasho ayadoo weliba dumar ah oo weliba hooye ah oo ayadoo weliba gabar walaal sheen ah oo soomaaliyeed marka waxaa ogaataa waa qof kudaysi mudan today ayadoo wax u baahan maanta waxay nooga baahanta waxaa waaye waa duco haddii wax loo qaban karaa masir walba garab lagu siin kara in lagu siiyo laakiin kaagama baahna in aad hadal xun ama hadal mataqaanaa maala yacni tiraahdo remember hooyo ayaa adig ku dhashay qof dumar ah waaye qof dumar wuu kula dhashay manaha ilama aha nin hooyadii dhashay ama qof bini aadan ah ama nin rag ah maanta oo hooyo dhashay in oo gabar hooyadiis camal ama walaashiis camal ah caynayo waxay ila tahay dadka luusarka faa'iisa waxaan rabaa inaan kugula dardaarmo abaayo habeen iyo maalin yacni sida dadka qaarkood la socdaan aniga waana haysay riwaayadana waa sameeyey macnaha dhul walba social network dadku ay igu wada barteen at the same time the more abaayo aa heshid taageero iyo the more aad dad badan waa marka kugu badan oo dad xun mataqaanaa cadow ah aad yeelanaysid marka waxaa ogaataa commentina weliga allah ha akrinin waxaa ogaataa meesha ku soo qoro niyadiisu kaa jebinin farxaddaada iyo niyaddaada weliga allah hayso abaayo ilaahay wax dhib ah kuma tuso sida aniga shalay kuugu sheegay oo aniga adigana aan goonida noo ahayd aan private ku wada hadalnay maantani shacabka ayagoo maqlayaan aan u sheegayaa am here for you abaayo wax walba ani iga baahatid aan kuu qaban karo ama nuuc walba ay noqoto garabkaaga inaad taagana ogaaw walaasha inaad tahay ogaaw walaalka inaad ogaaw aniga adiga qabiil walaalo kuma midoobin aniga adiga aqoon oo hore u sii horreyso ama isku xaafad aan ahayn ama in isku dugsi aan ahayn kumaana heshiinin waxaan ku wada heshiinay hal mid taas oo ah magaca Soomaaliyeed qabiil kumaana heshiinin wax kalena kuma heshiinin ogaaw abaayo garabka inaad taaganahay aniga iyo asxaabteeda iyo tiimkeena weliba sidaba sida walaalkay Salmaan iyo tiimkeena ma fahanti abaayo صح marka waxaan kuu sheegaya dadka waxa ay wadaan laakiin wallahi arrin farxad la ii sheegtay wallahi maxaa tiri Nairobi يعني غير نروح غير فرحانة وكنت أبو كلك افتباع سوقفتم ممتع فيديو وحالة داونا أمالينا أنا دقونا حتى I'm sure 100% يوتيوب أنا لقينا يوتيوب ده كان سيجل لين all كلا فيسبوك أكين تجي أنا جيت كرماقان لكن كولك إسكنا في تانلي سفر كاي نيروبي وسوما هرتا ها الحمد لله وحمد كلا كوسي فرح صار غير نروح ماشي يعني بعرف سفر كاي ولي هذا سفر كاي لكن هذا هو فرح صار ما دام نيروبي نقضي صوت متقنا ما ينروكم معك هذه أبتي مايا سفر كهذا كوجو رئيسو نيروبي ما هرتا وكل صعداء لكن أما إثيوبيا هي إثيوبيا هايجين إثيوبيا هلا كذا ما يهرتا waxaa aad ugu faraxsanahay ilaahay kaaga dhiga safarkaaga koowaad from Muqdisho ilaa Nairobi aad ugu faraxsanahay abaayo insha Allah Nairobi markaa tagtid ugaaliga ugu horeysa markaa saas u qaadanaysid snapchat soo dira baayo balan iga qaataas balan qaataas ونيس لايف كنيجا داونيسيد هدا ولاasha farxad siisid inay farxad helayso ogaaw laakiin hadaad nacas noqotid aad caysid ama aaniyada ka jabisid ogaaw oo wax xun waa wax qaldan maasik ugu dambeeyay waxa rabaa idin sheego reer Nairobi waxa u baahanahay hor dadka inta ku jirta live ka fiiri waa shargareeya hal mid aan ka codsanaya inta Nairobi ku nool waxa u baahanahay walaasheen airport markay imaato war fiiro soo qaada kaliya lidin ma dhahayo
saad ku soo dhoweyn karaysiin inaad ku soo dhoweysiin oo u baahannahay please and please walaasheen waayo waa gabar qaran ha aragto horta dad inay ka dhalatay dadka ka dhalatay kaagama wado aniga qabiil kaagama wado wax kale waxaa u baahannahay horta gabar Soomaaliyeed inay tahay walaasheen Soomaaliyeed inay tahay in aan si fiican u soo dhoweyno gabadhaas Nairobi airportka loogu soo dhoweeyo waxaa kaloo idin soo sheegaya insha Allah faa'iiso dadku mu sheegi karaysaa waqtiga iyo timeka mise gadaal ugu soo sheegaysaa gadaal ugu soo sheegdana laakiin insha Allah weekend dhexdiisa rajeyna ma la rabo taas dadku waxaa rabnaa airportka in live looga soo galo adoo lagu soo dhaweynayo farxadeena ayaa farxad walba abay ka weyn Soomaali hadaan nahay waa ku jecelnahay anaka insha Allah ta'ala yani dadku waxaa jirta qaalid oo hal mid jirto hay horta dawladda Soomaali markii tira ahaan la dhaho 3 milyan aan lagu tilmaamaa صح laakiin madaxda 3 milyan ma wada kaafi karto صح hora yani wixii soo daahaan qeyrka ku jiraan sida loo dhahay صح madax waa isku madaxweyne ra'iisul wasaare gudoomiye baarlamaan يعني markii qaranka la dhaho waa mid صح ayadoo xukuumadda kale yihiin laakiin qaranku waa mid صح maanta hadee baarlamaanka wax ay qabtaan qarna wax ay qabtay hadii ra'iisul wasaare wax ay qabto qarna ay qabtay madaxweynaha doo ay qabto qarna ay qabtay يعني kulligood waa mid صح inta wax ay qabanaysan يعني waa dad aniga ila dhalan wax ii gelin qaraabo ahayn Soomaalinimo qarannimo islaamnimo wax lagu qabanooyaan صح waan ugu mahadcelinayaa dhammaan madaxda qaranka oo qorsheysatay in ay maanta aniga wax ii qabtaan yani waxa tusaa shacabka Soomaaliyeed inaan ku kalsoonaa madaxda qaranka waligay ani post aan soo dhigay dhahay ra'iisul wasaarihi balano iga baxaya arkay faistoy hadalka mid yar hadal yar aan kugu darsado yani waxa kale oo jira walaal social network wala wada isticmaalaa hada dad badan baa hor daawanaya Ibrahim Baaf soo dhawaad saaxiibkay kulliga soo dhawaada Soomaaliya oo dhan mid kale aan kugu soo daro macnaha waxaan ka arkay social network waxyaabo dacaayad ah ama iska hadal ah anigoo doonayn ba hadda inaan too deep u sii galo ama gudaha u sii galo dad aaminsan ama aaminsana in dawladda Soomaaliya ay ku tir wax kuma qabanayno oo la dagaalan ama attack ama mataqaana weerar adigu ku sameeynayay wajis aniga waan ogahay laakiin waxa aysan jirin laakiin maxaad ku leedahay dadka ama shacabka Soomaaliyeed adina inaad taas u cadeysid ayaa ila wanaagsanaa lahayd in dawladana dagaal kala dhixinin awal haddana kala jirin oo awalna aysan ku dhihin wax aan ku qabanayna haba yaraatee malaha masaxana baayo صح oo ahaa kaliya in sida hadda la socono adigana la socotid anigana la socod dadkana la socdaan dad waxa jira baayo iska warxuma tashiil ah arimahaaga marka aad bandhigatay teeda kale aniga adiga waxaan maanta noo kala qarsanba malaha oo wax walba isla wada soconaa baayo inkastoo mataqaana dawladana ayadana waxyaabo kale busy ku ahayd yani arintaadu halka mid kaliya ama dawladda ayadoo mataqaana xumaan ayadoo la dhaho waligay ninkii dhahay madaxweyne waa saas ama ra'iisul wasaare waa saas horta maahi mar mi hataa ilaa Liibiya ha ahaato dad ku dhibaataysanaa waa u bandhignay waan la hadlay madaxda qaarkood waa la wada hadlay laakiin markii aad fiirisid abaayo dhibaatadii dalka taagan markii aad fiirisid ay ku sheegaan madaxdii yani qofku wadanka ka maqan dhibaatadiis markaad tiraahdo loo qabto kuwa wadanka joogay oo xaq lahaa ayaa meesha ka baxaya sida adiga camal marka waxaan rabaa inaan u sheego marka ummadda hadal xumada wadaan walaashan faa'iiso dawlad maysan dhihin waxaan ku qabanayna malaha laakiin jaaniskii ama waqtigii ama timekii oo ayadii yani oo almuhiim meeshii koowaad oo marka ugu horreysay sida wax loogu qaban lahaa unbaa si noqota maahane dawladda Soomaaliya waligeedna walaashid waxay dhahayeen waxba u qabanaynaa alxamdulillah maantana ilaaha ma hadda iska leh dadka xumaha wado oo mataqaana facebookada balaayada soo sameeysanaya gabadhan iyo dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed rabaan inay wax u kala gaarsiiyaan waxa leeyahay adeeg ku taala guusha la rabay Soomaali inay gaarto waa la gaaray qabiil laguma gaarin qurun laguma gaarin waxa lagu gaaray qarannimo
oo waxaa lagu gaaray magaca soomaaliyeed laguma gaarin heblaayo waa saan gabadhan waa saan gabadhan waa saas marka waxaa u sheegayaa walaasheen caafimaadkeenna ayaa muhiim noo ah dowlad keliya ah walaasheen maanta uma taala arrinteeda inkastoo ayada dowladda ay wax u soo qabatay laakiin dowlad uma taalo anakee noo taalaa anigaan daawanaysa inay u taallaa adigana daawanaysa u taallaa qof walba oo soomaali ah ayay u taallaa sababtay ugu taalla waxaa waaye ogaaw qofkan yacni qabiil ama mataqaanaa ama meel maamul goboleeda ama mataqaanaa koox isku tagtay ama urur isku tegay gabadhan dhibka kuma soo gaarin oo uniformkan umaysan xiran waxay u xiratay waa magaca guud ee soomaalinimo oo qarannimo ma fahanteen markii hadalka hala fahmo yaana loo qaadan wax iska easy ah ama wax iska simple ah walaashan marka kor iyo hoos ha loo duceeyo reer nairobi waxaan u baahannahay anigana waa soo shargarey doonaa insha allah oo snaabkaygaa soo shargarey doonaa ayadana keeday soo dhigi doontaa waxaan haddana idinka ballan qaadayaa hadduu alla idmo maalinta xaduudda ah ama maalinta saxda ah waqtiga iyo timeka waa idiin soo gudbinaynaa hal ka mid a hadalkayga uga baxaya waxaa waaye walaashan in nairobi habadka loo garaacdo garab la tuso horta dad inay ka dhalatay la tuso ayaa u baahannahay u fahanteed waa ogtihiin qabqable maanta markuu waddan imaado maanta ama qurbaha ahaato ama wadda walba ha ahaado waa loo imaadaa oo waa la soo dhoweeyaa walaasheen faa'iisto wax badan ayay ooysay wax badan ayay kurbootay wax badan ayay waxay dareentay alla ciil badana macnaha waa qof dumar ah macnaha hala tuso maanta in ay dad haysato aeroboorka ha loogu tago xaaladdeeda ha lala socdo wax walba ay u baahan tahay garab ha lagu siiyo lacag keliya maaha faa'iisto waxay u baahan tahay duco waxay u baahan tahay dhiirigelin waxay u baahan tahay garab la siiyo waxay u baahan tahay in lagu dhaho maanta haye faa'iisto ka waran cuntadaada ka waran maanta haye see wax u cuntay xaaladaada ka waran sidee jeclaa lahayd maanta inaad noqotid la sheekayso qofkii laakiin maanta markaa warkun tiraadid aad hadallo xun iska tiraada gabadha niyadday ka jabaysaa aada u mahadsantihiin hadalkayga intaas kusoo koobayaa faa'iisadday saa u ballan qaadnay dadkan waxaa waaye ummadda soomaalida u ballan qaadnay waxaan kaa codsanayaa abaayo adoo weliba lifeka igula jira hadda in aad maalin kale insha allah aan isku imaano dadkana aa waqtiga aa imaanaysid aeroboortka nairobi iyo saacaddani aan u sheegno miga aqbali kartaa taas abaayo adoo raalli ah horta qaalido aada u mahadsan tahay aboobe yani ani waxaan rajaynaa insha allah horta wiigan inaa imaado waqtigaa qabana haddaa dhahana yani maya hadda ma adoo sheegina yani inaan maalin kale aan live kala soo galno aan soo gudbinaa ka wada abaayo may insha allah dhawaana rajaynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo inaan aan imaado waxaan rabaa inaan u sheego dadka warxumo tashiilka oo yani dowlad naceebka oo mar walbana wararkeysa uu ifinayo waxaan ka codsan lahaa inay iska daayaan walaalayaalo ilaah ha laga cabsado ha la iska waantoobo waxa waaye dowladana aan taageerno aan garab siino